دكتور عبدي waxa uu dhowaan mid ka mid ah jaamacadaha Muqdisho ka dhameeyay takhasuska caafimaadka. Waxa dhacay maalinkii xafladda qalinjabinta uu aabihii kala kulmay dhacdo aad u yaab badan oo naxdin ku noqotay. maadaama uu subaxa Dr. Cabdi isu diyaarinayay xafladdii qalinjabinta kadib 6 sano oo uu halgan ku soo jiray. Aabaha Dr. Cabdi ayaa subaxa wiilkiisa uga sheekeeyay dhibkii uu wax ku soo baray, isagoo sidoo kalena wiilkiisa siinayay talooyin ku aadan adduun iyo xaalkiis iyo halgankii uu nolosha ka soo maray yaraantiisa. in door ah oo aabihii u sheekeynayay kadib ayuu Dr. Cabdi marqura maqlay aabihii oo leh Cabdiyow saaka wixii ka dambeeyay isdabar. maxaa yeelay aniga booskii aan lahaa adigan kuu iibiyey si aad wax ugu barato. maanta haddii aad jaamacaddii dhammaysay oo aad shahaadadaadii soo qaadatay gurigan ka cun quraacdii ugu dambaysay, boorsadaadana soo mar hadhow markaad xafladda ka timaado, magaaladaadana dhinac ka deg. marka hore naftaada anfac oo meel u yeel, marka xigtana maanka ku hay in reerkan adiga uun ku sugayo. Dr. Cabdi ayaa marqura soo istaagay isaga oo yaaban. waxa uu weydiinayaa aabe makaa dhabbaa waa sidee weli shaqo xitaa ma heline, sideen guriga uga guuraa, halkeen aadaa, soo gurigan kama dhalan, iyo su'aalo kale oo calaacal u badan. aabbihii wuxuu yidhi aniga waan ku soo kariyey intii karaankayga ah, waxna waan ku baray oo maanta caqli iyo cilmiba kuguma yara ee isdabar. Dr. Cabdi waxa uu isku dayay inuu aabbihii ku qanciyo sida uu rabo oo ah inuu joogo guriga inta uu shaqo ka helayo, balse aabbihii wuxuu ku adkaystay inuu ugu horrayn guriga ka guuro oo uu naftiisa maareeyo. waxa uu ahaa subax uu Dr. Cabdi isu diyaarinayay maalin dheer oo farxad iyo dabaaldeg ah, balse hal mar ayay isu beddeshay maalin fikir iyo madax xanuun miiran ah. su'aalo waaweyn oo aysan maskaxdiisu hore isu weydiin ayaa ku soo fatahay. mar waa uu dareensan yahay in waxbarashadiisa laga soo maray dhib badan, mar kalena wuxuu ka fakirayaa halkeed ka bilowdaa haddii aad guriga ka baxdo. ugu horrayn halkeed degi ayuu isweydiinayaa. talo ayaa Dr. Cabdi ku caddaatay. waxa uu weli isweydiinayaa oo ka degilaa xafladdan ma mid farxadeed oo damaashaad iyo dabaaldeg loogu talagalayba, mise waa bilowga mas-uuliyadda nolosha cusub oo ka adagtii waxbarashada ee mar walba lagu kaalmayn jiray. aabe muxuu farxadda kaaga qasay iyo su'aalo kale. xafladdii ayuu aaday. intaa xafladda lagu guda jiro Dr. Cabdi wuxuu ka fakirayaa hadhow yaad saaxiibadaa horay u sii raacdaa oo aad gurigiisa boorsada sii dhigataa, yaad dhowr habeen la sii seexataa, intee ayay kugu qaadan doontaa inaad shaqo hesho oo aad kadibna aqal yar ijaarato. ugu dambayn xafladdii way dhammaatay. Dr. Cabdi wuxuu sheekadiisa u sheegay yar saaxiibo ay ahaayeen, isagoo ka codsaday inuu dhowr habeen gurigooda ku baryo ka hor inta uusan qol kiraysan. habeenkii koowaad hurda kama soo dhicin. fikir talow maxaad fashaa. subaxa koowaadba wuxuu istusayaa in quraacda uu xaafadda saaxiibkiis ka cunayo xitaa ay su'aal weydiinayso oo ay leedahay Cabdow waa quraacdaadii koowaad, ilaa goormaad rabtaa inaad halkan ka sii quraacato. waa su'aal uusan jawaab u heli karin. Dr. Cabdi subaxii koowaadba wuxuu bilaabay inuu booqdo meel walba oo isleeyahay shaqaad ka heli kartaa. lacag yar oo saahi ahaan loo soo siiyey ayuu xisaabin kala daalay. shilin walba oo ka baxaya waa inuu dhanka shaqada u sii dhoweeyaa. dhowr maalmood kadib ayuu arkay shaqo la soo xayeysiiyey. waa fursad shaqo oo ka bannaan mid ka mid ah caasimadaha gobollada dalka. alla ma gobol baan aadi karaa haddii aan helo xitaa ayuu isweydiinayaa, balse hoos ayuu naftiisa ka hiifayaa isagoo leh walle nasiib baad leedahay haddaad hesho meel dadkan aad dulsaarka ku tahay kaa kafaysay. shaqadii ayuu codsaday. nasiib wanaag waa uu ku guulaystay, balse shaqadii ma ahan middii uu ku riyoonayey. mushaarkuna ma aha midka xamar looga riyoodo, balse xaaladdiisu xamar iyo xarago midna xiriir lama laha. waa xaalad gaar ah. shaqadii ayuu aaday isaga oo qoyskiisa macsalaameeyey. halkii ayuu dhowr sano kadib shaqo kale oo ka mushaar fiican uga sii dallacay. jaamacad deegaanka ku taallayna dhowr galaas ayuu macallin ka noqday. kaalay iska arag. Dr. Cabdi waa ay u kala kacday. bil walbana qoyskiisa ayuu biil u diraa. noloshiisana waxay noqotay mid u muuqatay inay cagta saartay toobiyaha guusha. Dr. Cabdi
hadda waxa uu filayaa inuu guursado 3 sano kadib qalinjabintiisii iyadoo saaxiibadii weli shaqo la'aan yihiin. saaxiibadii waa ay diideen shaqo gobol ama mid mushaar yar.